السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلام يا أصحابتك وحرن عبدول تي في ميلو بادونيدا كجوجتين وصاحبكين عبد الرحمن. وإذن ده سود هذا نيو دي نيو فيديو maalmaha waa la kala maqnaa xoogo wax lagu kala mashquulsanaa hawlo adduunyo waxaas waa idin kara la gelinayaa hadda kadib waan soo laabtay insha Allah ta'ala reactionada sideeda noogu socon doonaan caawa waxa idin wadaa hees u soo qaada farxan yare heestan waxa la dhahaa hadal doqoni kugu tiri waa karbash heestan karbash xalaale xanta suuqa ku jirta waxa waa inuu soo qaaday xaajiyadiisa hore iyo qofka lagu xamanaa xaajiyadiisa hore inuu ayaamahan xoogo uu shushkaansado ama uu guursan rabo marka labadooda usoo qaaday waana karbash idin sheegay dhac xalaal aan caadi ahayn intaana u gadagelin waxaan ka codsanayaa channelka cusubta Abdul TV fadlan subscribe noo saar like saar share asxaabtada la wadaag hadda nagu xiran tahayna waa kaaga mahadcelinaa sida quruxda badan noogu xiran tahay okay heestaas hore idin kugu sheegay waxa la dhahaa magaceeda hadal doqoni kugu tiri waxa soo qaada farxan yare heesta ayadoo dhameystiran waxa ka heli kartaa Tusmo Films hadal badan han ma buuxsho hadalkeeda intaan idin ku daalinin heesta aan dhaxmu shaaxno bad camal aan dhax dabaalano namariya waa tara marka heesta daawasho wanaagsan farxan yare hadal doqoni kugu tiri Allah heesta magaceeda govinda soo ma kaysay heesihiisaan dheh dadka kala aqoono aragtida ku kala duwan dadka aqoon iyo aragti ku kala duwan haye ha ku dayan qof maanguran iyo ruux daciife ha ku dayanin qof maanguran oo caqli aan lahayn iyo qof daciif oo waxba aan ahayn hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin dadka kala aqoon wuxuu dhahay hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin waaron hadal doqoni kugu tiri maanta inaan dhaho maxaa la yidhaahdo maxaa in dhahdo doqon hadalkiisa maxaa loo qaadanaa marka aragtida ku kala duwan faa'iido kuma jirto ha ku dayan qof maanguran eber macna hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin waa heesta magaceeda hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin hadal doqoni kugu tiri waliga hadaba galin dabcigiisa ruux gaday oo macnaha dadka maanta dhan ku dawdaydo hebel ku dawdaya dabeecadiisa dhan uu ka tegay ku dawadayasha nafta ka qaaday haye ha ku dayanin waa gun waa qof liito ha ku dayanin qof asagaba dadka ku koobiyeeyo oo wuxuu yahay aan la arkin nin inaa qofku rabo ha ahaado hadda adigana ku dawdayto ka waran macnaha waa daciifnimo kale aydan dadka midka ku dadaalo iyo kala baro qofka ku daran oo lugooyadaada iyo ka taliyo macnaha maanta dhan inuu adiga ku xagto oo wax un kaa sheego meel maanta dhan aan waxba ka jirin inuu dhaho hebel saan waa adigu ku daba taagan marka waa la kala bartaa dadka waana laga tagaa dadka xun runtii waxay ku fiican tahay inaad mustaqbalkaaga daarto inaad ka fikirayso dadka xun ama maanta dhan hadalkaaga hayo oo cadowtinimada kuu qabo waa laga tagaa kora looga baxaya dhan 6 inta loo bedela 9 looga dhigaa marka maba ku garanaya loo soo dejiyaa waa runtiis nacaska dib aga guro waa lagu daadiyay baash labadii wiil oo dhinaciisa taagan sawirkiisa meesha ugu dhagan marka ya waa khatar caadi ma kala baro qofku daran nacaskana dib uga guro waxaankaaga dib u dhiga damacyanu ku gey waxaankaaga dib u dhiga damacyanu ku geenin
dadka ruuxa ku neceb afka kuguma dili karo afka dadka ruuxa ku neceb afka kuguma dili karo afka kuguma dili karo aha waxankaaga dib u dhiga damacyaanu ku geyn صح waxankaaga dib u dhiga damacyaanu ku geyn dadka ruuxa ku neceb afka kuguma dili karo afka si walbo lagu necbi af wax lagaaga ma qaadayo marka adiga waxa fiican inaad dadkaas ku daba daynin ama hadalkooda adan dhig jalaq u siinin dhigaha fara inta laga gashto adduunyadaada iyo waxaaga laga wataa howlahaaga laga qabsadaa horumarkaaga inta horumaraysa ayaga ha fadhiyaha ku xantaan adigana waa laga socdaa dadka ruuxa ku neceb afka kuguma dili karo afka kuguma dili karo Govinda meeshaan dadaalkaaga sii wada ayaga ha fadhiyaa ha hadlaan adiga dadaalkaaga ka wado danaystayaashayana dabar adag kugu xiran dabar waxaa la dhahaa xoolaha markii la maalaayo xariga lugaha looga xirxiro si usoo soconin saca ama ariga ama geelka si usoo soconin lugaha xarig looga xiraa waa dabar marka qof danaysta hadduu dabar kugu xirto oo maanta dhan isaga ka dhiga qof daacad laakiin danaysta uu yahay adigana howlahaagii aad qabsan lahayd aad dartiisa u dhahdo qofkan wallahi waa saaxiibka ama waa saaxiibada waxaan u qabo laakiin ayagana caqligooda uu ku jiro qofkan ku danayso waa laga boodaa dadkaas danaystahana hal mida lagu gartaa waxaa waaye marka adiga dan leedahay hadda u dan sheegata hadduu ku dhihi waay niyahow ama qof yahay hadda ka hore axsaan ii samaysa adoo dantaada wadata ii joojisa maanta ii joojina soco soo qabso hadduu ku dhihi waayo oo qofkaas maalin walba uu ku dhaho aniga baahidaada ka fiican waa laga tagaa ka dulbood waxyaabaha howlahaaga dumin kara damashaad ku noolow ka dulbood waxyaabaha howlahaaga dumin kara waa waxyaabaha dib kuu dhigi karo ka fogow damaashaad ku noolow farxada ku noolaanaysaa waa la qabaa taas xaqiiq waa howlahaaga dumin kara damashaad ku noolow dadaalkaaga sii wado labadan gabdhood dhegahey waxaa isugu sheegayaan maanta dhan marka waxaa u maleeyaa dad waxaa jiro aroosyada aan looga yeeranin oo wiilasha u badan weliba inta gees la istaaga gabdhaha maanta dhan waa la fiirinaa waa loo iljibinaa ama waa loo fofoorinaa wax balaayo adig gabdhihi nafta xaxa dhuunta loo gelaa marka dad noocaas camal aa jiro marka gabdhaha waxaa jiro kuwa caqli badan ishoodan ee dheerta wax arko marmarka qaar inta loo tagaa waxaa leeyahay saaxiibo baa naga bootis camal fiiraan ugu wereerisay war naga daaniyo meesha baashaala u imaanay markaas wuxuu dhahaa qaarkood may qoftaas u baahnay war saaxiibkeeda la socdo ama ninkeeda le wallaahi markuu carar hadhow waxaa leeyahay doqonkii bacmadoogan ku daba xero wuu orday alla kuwa dhib badan maxay jiraan haye noo wada danaysta weliga usan dabar kugu xiranin adag mid jilicsanay mid adag uusan kugu xiranin ku noolo damaashaad ku noolo heestaan lagu ciyaari fiican okay halkaan isaga soo ekeenaya waa aragteen heestaan waa karbaash aan caadi ahayn karbaash xalaal ah ee suuqa xaxanta ku jirtan waxaa la leeyahay dadu usoo qaaday I don't know qoftiisa hore muu usoo qaaday qof kale muu usoo qaaday ma garan karno laakiin heesta waxaa ka muuqato inay tahay dhiiragelin iyo macnaha karbaash isugu jirto marka waxaan rajeynayaa inaad ka hesheen reactionkan haddaa ku cusubta Cabdul TV fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo saarto like saarto share dhahda asxaabtaada la wadaagto nagu soo biir waa ku mahadsan tahay inta nala joogtana waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sida quruxda badan aad noola joogtiin maalinka idin wanaagsanaado mar kale waxaa idin leeyahay jimco wanaagsan inta aan mar kale dib aga kulmi doono waxaa idin leeyahay maalin wanaagsan bye bye